Ko xikmad leh sirta guusha. Waxaa jiray wiil dhalinyaro ah oo aad u jeclaa inuu mar noqdo qof guuleysta, balse ma uusan garanayn sida uu ku guuleysan lahaa. Waxa uu doonayay inuu gaadho guul. Maalin ayuu la kulmay nin oday ah oo waayo arag noloshana wax badan ka soo arkay. Wiilkii odayga waayo aragga ah ayuu la sheekaystay. Hoogaa kadib ayuu weydiiyey su'aashii maskaxdiisa ka guuxaysay oo ahayd, waa maxay sirta guusha? Ninkii odayga ah waxa uu ku yidhi, wiilkii, waan kaga jawaabayaa ee aan beri isugu imaanno qarka webiga. Sidaas ayaana lagu kala ballamay oo lagu kala tagay. Maalintii ballanta markii la gaaray oo labadoodiba soo xaadireen webiga, ayaa ninkii waayo aragga ah ku yidhi wiilkii, inakeen aan biyaha galne. Biyihii ayay galeen. Markii ay badtamaha webiga gaareen ayuu ninkii weynaa madaxa ka qabtay wiilkii yaraa, isagoo hoos biyaha ugu riixaya ayuu wiilkii xaaladii ku adkaatay ilaa ay indhihii casaadaan. Wax yar kadib ayuu sii daayay. Wixii ugu horreeyay uu sameeyay wiilka yar markii la sii daayay waxay ahayd inuu madaxa kor ula soo baxo oo uu neefsado. Ninkii odayga ahaa ayaa wiilkii weydiiyey, markii aad ku jirtay biyaha oo aan madaxa kaa hayay, maxaa ahayd waxa aad jeclaan lahayd inaad hesho? Wiilkii ayaa kaga jawaabay, hawo si aan u neefsado. Odaygii ayaa yidhi, haddaba su'aashaad shalay i weydiisay jawaabteedu waa tan. Waxa aad doonayso inaad ku guulaysato ilaa aad u raadiso sidaad hawada markaad biyaha ku jirtay kuma guulaysanaysid. Sirta guushana waa taas.